fiid wanaagsan khiyaarta nala socota idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka tibinta wararka dunida iyo faaqidaada Barrow Show waa 31 Oktoobar sanadka waa 2025 qodobo waaweyn oo xiiso leh ayaan idin hayaa waxaana kamid ah dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa wajahaysa fadeexadii ugu weyneed oo ku saabsan xaaladda dagaalada ka soconaya gudaha wadanka Suudaan gaar ahaan gobolka Darfur magaalada Al-Fashir oo lagu dilay dad kor u dhaafaya 2,000 oo qof ninka safiirka waa dowladda Suudaan ee ku sugan qaramada midoobay ayaa waxa uu soo bandhigay cadeymo muujinaya dowladdaasi waa Imaaraadka inay gacmaha dhiig ku leedahay oo ay tacadiyo badan geysanayaan mar kale iyadoo xiisada wadanka Suudaan ay adag tahay waxa dhinaca kale soo baxaya eedeymaha loo jeedinaya Puntland oo Soomaaliya ka tirsan iyadoo garoonka magaalada Boosaaso xiisadiisa ay mar kale dib u soo cusboonaatay wargeyso kala duwan oo ay ka mid yihiin The Guardian, Wall Street Journal iyo sidoo kale wargeyska la yiraahdo The Middle East Eye ayaa dhammaantood soo bandhigaya warbixino kala duwan oo baaritaan ah oo muujinaya calooshadu shaqaystayaal Colombiana in Imaaraadku ay marsiinayaan gudaha magaalada Boosaaso garoonka halkaasi ku yaala haddaba madaxweyne Saciid Dani muxuu ku badashay dhiigga shacabka Al-Fashir iyo waliba tacadiyada ka dhacaya gudaha wadanka Suudaan warbixin ayaan idinkaga hayaa arintaasi oo warbaahintu ay si weyn u faaqidayaan xogag kala duwan oo dhinaca ammaanka ahna ay muujinayaan xiisadu in ay ka sii darayso xilligan dal carbeed oo ay sidoo kale isticmaalayaan Imaaraadka ayaan barnaamijkan idinkula wadaagi doonaa inta aan wada joogno khiyaartay nala socota inagoo dhinacyo kala duwan ka eegayna xaaladda sii xumaanaysa ee gobolkaasi ka taagan oo iminka wararku ay qeexayaan inay adag yihiin wadanka Hindiyana waxa uu Mareykanku la galay 10 heshiis oo ku saabsan arrimaha difaaca xilli maalmihii ugu dambeysay Mareykanka iyo waliba wadankaasi ay si weyn isku hayeen oo ay soo baxayeen warar kala duwan oo ku saabsan arrimaha dagaalka iyo waliba isbedelada waaweyn ee hadda ka soconaya guud ahaan caalamka khiyaaray soo dhawaada qodobadaas ayaan idinkula wadaagayaa barnaamijkan oo xiiso gaar ah leh waxaan ahay Cabdicasiis Barrow ku soo biiray YouTube-ka iyo Facebook-ka labadaba aad baad u mahadsantiin ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar dowladda Suudaan ee hogaamiye General Cabdifataax Burhaan ayaa dhaleeceyn xoogan u jeedisay dowladda isutaga Imaaraadka Carabta iyadoo oo ku dhaleeceysay in dowladdaasi ay ka dambayso dhibaatooyinka ka dhacaya gudaha wadanka Suudaan gaar ahaan tacadiyadii ka dhacay magaalada Al-Fashir ee gobolka waqooyiga ee Darfur halkaas oo lagu dilay maalmihii ugu dambeeyay dad kor u dhaafaya 2,000 oo qof safiirka dowladda Suudaan ee Idris lagu magacaabay qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay dowladda Imaaraadku inay gacmaha dhiig ku leedahay oo ay ka shaqeynayaan sidii haweenka iyo carruurta dalka Suudaan loo baabi'in lahaa iyagoo taageeraya buu yiri kooxo calooshad u shaqaystayaal Colombiana oo ka garab dagaalamaya kooxda dacmo sariic oo tacadiyadii ugu weynaa haatan lagu eedeeyay marka la fiiriyo dhibaatooyinka taagan isagoo ka hor hadlaya golaha ammaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxa uu safiirkaasi soo bandhigay cadeymo kale oo muujinaya xaaladda wadanka Suudaan meesha haatan taagan tahay wargeyska la yiraahdo At-Taqyiir ayaa ku waramaya ee Suudaan ka soo baxa dowladda jamhuuriyadda Suudaan waxa ay ku celinaysaa eedeymo culus oo ay u jeedisay dowladda isutaga Imaaraadka Carabta oo lagu tuhunsan yahay inay si joogto ah u maalgeliso una hubaysa baa la yiri una taageerta maleeshiyaadka taageerada degdega ah ee RSF-ta loo yaqaano kuwaasi oo geysta xasuuqyo iyo waliba falal foolxun oo ka dhacay gudaha wadanka Suudaan gaar ahaan magaalada Al-Fashir oo maalmihii ugu dambeeyay ay muuqanayeen tacadiyada ka dhacay inay caalamku gelgeleen safiirka joogtada ah ee Suudaan u fadhiya qaramada midoobay Ambassador Ali Harith Al-Idrisi ayaa khudbad adag ka jeediyay fadhi uu golaha ammaanka kula yeeshay Khamiistii mas'uuliyiin kala duwan oo ka socotay golahaasi isagoo ku tilmaamay falalka Imaaraadku inay yihiin kuwa ugu halista badan ee carqaladeynaya buu yiri
nabadeynta iyo weliba xasiloonida Suudaan iyo guud ahaanba gobolka. Ambassador Idris ayaa sheegay in ceeb iyo xaqiraad ay ku tahay golaha guud ee qaramada midoobay ama golaha ammaanka ee qaramada midoobay in uu dhageysto wakiil ka socda dal gacmihiisu ay ka da'ayaan dhiigga carruurta iyo haweenka shacabka Suudaan, isagoo intaa ku daray in hubka iyo maalgelinta ka imaanaysa Imaaraadku ay yihiin sababta ugu weyn ee dhimashada, barakaca iyo burburka wadankooda ka jira. Safiirka ayaa markuu intaasi yiri isagoo qeyro badan ay ka muuqanayso aadna ay u gubayaan waxa ka dhacay Al-Fashir, waxa uu soo xigtay warbixin ay daabaceen wargeysyada Wall Street Journal iyo weliba wargeyska kale ee The Guardian, kuwaasi oo muujinaya cadeymaha la xiriira kaalinta Imaaraadku uu ku leeyahay diriirta ka taagan Suudaan, gaar ahaan hubka iyo weliba sahayda military ee la siinayo ciidanka loo yaqaan RSF-ta oo hadda isku bedelaya kooxaha calooshoodu shaqaystayaasha ah. sidoo kale warbixin uu baahiyay telefishin Libyaan ah ayaa shaaca ka qaaday in ugu yaraan 10 duulimaad oo ciidan ay ka degeen gudaha wadankaasi, gaar ahaan qaybta Libiya ee bariga ee uu maamulo sargaalka Khalifa Haftar lagu magacaabo 25 ilaa 26 Oktoobar si ay u gaarsiiyaan RSF-ta hub iyo qalab dagaal xilli ay sii xoogeysanayeen dagaaladii ka dhacaya magaalada Al-Fashir. Idris waxa uu xusay in maxadka daraasaadka bani'aadanimada ee jaamacadda Yale uu xaqiijiyay iyada oo la adeegsanayo sawirro dayax-gacmeedyo in lagu dilay dad rayida gudaha cisbitaalka Saudi Maternity ee Al-Fashir ku yaala intii u dhaxaysay 26 iyo 28 Oktoobar. Goobjoogayaal maxalli ah waxay sheegeen in bukaanada cisbitaalku ay si naxariis darro ah loo xasuuqay. weerarkaasna waxaa fuliyay kooxda gurmadka degdega ah ee loo yaqaano Dacmusriic. dowladda Suudaan waxay tilmaantay falalkaasi inay si cad u jabiyeen dastuurka qaramada midoobay, xeerarka aadanaha iyo heshiisyada jaamacadda Carabta iyo go'aanada golaha ammaanka ee mamnuucaya taageerada kooxaha hubaysan ee argagixisada. Ambassadorka oo weli aad u qeyraysan oo sii hadlaya waxa uu leeyahay sidee bay u suuragal u tahay in dal sheeganaya in uu nabadoon yahay uu diyaaradihiisa uga buuxinayo rasaas iyo hub si uu ugu diro kuwa u shaqeeya in ay laayaan haweenka iyo carruurta dalka Suudaan. waxaa la xasuustaa buu yiri dagaalka u dhaxeeya ciidanka qaranka Suudaan iyo RSF-ta inuu qarxay April 2023 taasi oo dhalisay dhibaato bani'aadanimo oo aad u weyn, kumanaan qofna lagu dilay, ku dhawaad 13 milyan oo qofna ay ku barakaceen. dowladda Suudaan waxay ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay beesha caalamka in ay qaadaan tallaabo degdeg ah oo joogto ah oo lagu celinayo dowladda Imaaraadku inay farageliyaan wadankooda isla markaana ay ka shaqeeyaan dhibaatooyinka soo gaaraya dadka rayidka ah. dhinaca kale Puntland oo Soomaaliya ah ayaa iminka wajahaysa mid ka lamida dhaleecooyinka dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ay wajahayaan. madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo maamulkaasi hogaamiya gacan saarna la leh dowladda Imaaraadka ayaa haatan waxa uu la kulmayaa dhaleecayn adag oo uga imaanaya warbaahinta adduunka kadib markii qaar ka mid ah wargeysyada waaweyn oo ka mid yahay wargeyska The Middle East Eye uu qoray warbixin uu qoray saxafi Soomaali ah oo baaritaana oo xaqiijinaysa macluumaad badanna soo gudbinaysa oo ku saabsan Imaaraadku in ay ka shaqeynayaan inay halkaasi mariyaan diyaarado waaweyn oo ay ku daabulayaan ciidamo calooshoodu shaqaystayaal Colombiana. warbixinta uu qoray saxafi lagu magacaabo Bashiir Caato waxa ay soo bandhigaysaa cadeymo kala duwan, diyaarada degaya oo waaweyn iyo waliba ciidamo halkaasi la dhaafinayo. diyaaradahaas oo in muddo ah soconayay. waxaa sidoo kale lala hadlay dad goobjoogayaal ah oo muujinaya in ay diyaaradahaasi arkeen iyo waliba ciidanka lagu daabulayo. maalmihii ugu dambeeyay garoonka Boosaaso ayaa lagu tilmaamay inay noqotay goob calooshoodu shaqaystayaasha ka imaanaya Latin America la marsiiyo, kuwaasi oo ka dagaalgalaya wadanka Suudaan, dad fara badan oo rayidana ay ku dhimanayaan. ilaa iyo hadda Puntland kama aanay jawaabin eedeymahan ay wajahayso iyo waliba garoonka Boosaaso oo isku bedelay goobta laga tahriibiyo calooshoodu shaqaystayaasha Imaaraadku ay kareeyeen
tacadiga ka geysanaya gudaha wadanka Suudaan xilli dhibaatooyin xoog leh wadankaasi ay ka taagan yihiin xaaladda bani aadanimana ay aad u adag tahay maaha markii ugu horeysay ee Puntland eedayn noocan oo kale ay la kulanto laakiin hadda waxay ku soo aadaysaa iyadoo caalamku uu marqaati ka yahay tacadiyo waaweyn oo ka dhacaya deegaanada kala duwan ee Al-Fashir ee dalkaasi Suudaan haddii aan geeska Afrika intaasi ku dhaafo wadanka Hindiya iyo Mareykanka ayaa kala saxiixday heshiis 10 sano ah oo la xiriira xoojinta ammaanka labada dal xilli maalmihii ugu dambeysay ee aad u adkeyd xiriirka labada dhinac u dhaxeeya dowladda Hindiya iyo waliba Mareykanka ayaa jimcihii maanta ahaa kala saxiixday heshiis iskaashi amni iyo difaac oo qaab dhismeedkiisu uu socon doono muddo 10 sanadood ah kaasi oo lagu doonayo in lagu xoojiyo iskaashiga militariga iyo wada shaqeynta ammaanka iyo horumarka tiknoolajiyada difaaca labada dal heshiisku waxaa lagu saxiixay intii uu socday shirka wasaaradda difaaca ee ururka koonfur bari Aasiya iyo oo ka dhacay baa la yiri dalka Malaysia waxaana koobjoog ka ahaa wasiirka difaaca wadanka Hindiya iyo waliba kan dalka Mareykanka ee Pete Hegseth la yiraahdo ujeedooyinka heshiiskan waxaa lagu sheegay in wasiirka difaaca ee Mareykanku Hegseth uu sheegay in heshiis cusub uu xoojin doono xiriirka difaaca Washington iyo Delhi isagoo tilmaamay inuu noqonayo tiir muhiim u ah xasiloonida iyo kahortagga qataraha gobolka Aasiyada iyo gobolka Pacific labadaba isagoo qoraal ku daabacay baraha bulshada waxa uu ku sheegay Hegseth waxaynu ku ballaarinaynaa iskaashiga sirdoonka iyo wadaagitaanka macluumaadka iyo horumarinta tiknoolajiyada ee difaaca ma jira buu yiri waqti xiriirkan heshiis military oo xoog leh oo labadaasi dhinac u dhaxeeyay dhinaca Hindiya qudhooda waa amaaneen heshiiskaasi laakiin waxay tani ku soo aadaysaa iyadoo dowladda Modi iyo waliba Trump uu hogaamiyay aad u kala fogaayeen dhinaca wadanka Yemen dowladda jamhuuriyadda Yemen ee caalamku aqoonsan yahay ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigeen shaxnada military iyo kiimiko u socotay kooxaha Xuutiga oo ay ciidamada wadankaasi qabteen dowladda jamhuuriyadda Yemen waxay ku dhawaaqeen inay qabteen shaxnado weyn oo military iyo walxa kiimika oo lagu waday si qarsoodi ah in lagu gudbiyo kooxda Xuutiyiinta taas oo ka timid howlgal wada jira oo ay fuliyeen ciidanka ilaalada xeebaha iyo ciidanka badda Yemen bayaan rasmi ah oo ay soo saareen hay'adaha ammaanka ayaa lagu sheegay in howlgalka uu dhacay Khamiistii kadib markii ciidanka sirdoonka guud ay bixiyeen xog ku saabsan doon walxahaasi waday oo la sheegay inay ka timid dhinaca Iran Xuutiyiinta ayaa si weyn loo tuumay inay gacan saar la leeyihiin dowladda Iran ikhyaaray intaas ayaan ku gabagabeynayaa tabintan waa barro idile nabadgeli Ramas Hotel and Restaurant waxa uu leeyahay adeeg dhameystiran waxaana ku diyaara qolal jiif oo heer sareeya hoolka aroosyada iyo shirarka maqaayad furan 24 saac oo leh raashin dheef iyo dhadhan macaan internet xawaare sare leh wiish iyo amni joogto ah Ramas Hotel waa doorashadaada ugu fiican waxaana uu ku yaalaa Bakaaraha agagaarka isgoyska Carweydka